muddo adiga 10 sano ku dhawaad aan deganahay waan soo kori jiray anoo lugahayga qabo markaan lugahayga qabaaba xanuun dareemi jiray haddana way ka sii daran tahay waxa dartaa markaan biraha wato oo xanuun zaa'id aan dareemo sida hadda dhinac wadnaha ayaa mar walba alxamdulillah horta ilaah baa ii doortay oo inaan biro ku socdo macnaha wax dooqayga ma ahan waa doorasho ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ii sakhiray xuseen mawlid aabbo xooggiisa ku shaqaysanayay inta uusan xagga rabbi uga imaan qadarkan lixaadkiisii kala dhantaalay dhibaatada ay ku haysan naafannimada iyo inuusan shaqaysan karin waxa uu sii dheer midda uu ku qabo xaafadan uu degan yahay ee Waayaabe iska daa isagee dadka xitaa lugahooda qaba ayaa dhibaato weyn kala kulma marka ay doonayaan inay ka soo degtaan xaafadan si ay uga soo adeegtaan meelaha ay u baahan yihiin ee magaalada dhinaceeda kale xaafadan buur ayay saaran tahay iska dhaaf qof naafa ah qofka kale ee caadiga ah ayaa marka uu soo fuulayo dhibaato weyn ay ku tahay waana sababta magaceeda loo yiraahdo Waayaabe ama Waayaabaysa sheekada gurigan ka jirta ee Xuseen ayaan rabnaa inaan idin wadaagno xaafado muddo adiga 10 sano ku dhawaad aan deganahay waan soo kori jiray anoo lugahayga qabo markaan lugahayga qabaaba xanuun dareemi jiray haddana way ka sii daran tahay waxa dartaa markaan biraha wato oo xanuun zaa'id aan dareemo sida hadda dhinac wadnaha ayaa mar walba markaan subaxdii sii deganayo galabtii markaan soo koro habeenkii wadna xanuun badan aan dareema wallahi waa xaafad iska xaaladeed ilaahay og dadkii deganaa dareemi karo qofka dadka deegaanka meesha ku ah oo waa xaafad bacaad aan sineen oo guri ka koreeyo marka dan iyo duruufaan u haysan macnaha guriyaha iska jingado waayo oo qiimahooda iska raqiis ahaan oo jingadii qol $30 saas awgeeda lagu degan yahay moogi Xuseen wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka shaqeeya dhismaha sida uu sheegay maalin kamida maalmaha ayay ku dhacday dhibaatadan kadib markii uu ku soo dumay derbi ama meel shub ah oo uu ka shaqeynayay intaas kadib waxa uu bilaabatay nolol uusan isagu dooran balse uu Ilaahay u qadaray waxa uu jooga caruur yar ah oo sida uu sheegay aan garanayn aabihiin waa naafo iyo waxba ma qabsan karo bismillaah magacayga waxa la Xuseen Mawlid Xuseen waxaan ahay nin xamaali oo wuxuu ku nool oo dhismo ka shaqeysto sida shaqada fuundiga iyo faryaamaha alxamdulillah adiga saan iskiga shaqeysanayay maalmaha kamid ah jawaarid mise iskaalo si loo yaqaano ayaan ka soo dhacay dacitaankii ka soo dhacay lugtii tarar ay iga galay oo dhinacaya ka jaxmatay marka alxamdulillah tararkii iga galay aan ku dhaawacmay dhowr mar isbitaal aan geeyay lugtii infection iga qaaday marka infection markay iga qaaday alxamdulillah isbitaalo badan la geeyay isbitaalada la geeyay markii ugu dambeysay lugtii waa kansar isku bedeshay sidii aan lagu jaray alxamdulillah marka maanta wixii ka dambeeyay ilaa xadartan waxa waaye xaasan leeyahay caruuraan leeyahay mana shaqaysto oo birahaas hadda ku socda waqti marmar oo igu soo kacda laakiin hadda waa iska roon tahay marka walaalaha Soomaaliyeed waxa ka codsan lahay dal iyo dibid waa dareemi karaan aabbo lixaadkiisa qabay oo ilmihiisa subaxdiisa oo inuu baxo oo soo xamaashto oo soo qaraarto habeenkiina wixii la soo laabtay ilmihiisa dabka ugu shidanaya aan haajiray laakiin maanta arintaas ma awoodi karo gacmihii aan shamiidada ku qaadi lahaay mise badilka aan ku qaban lahaay mise buriska aan ku qaban lahaay birahaas aan ku wataa marka waxaan codsan lahaa in islaamnimo lagu caawiyo dal iyo dibad walaalaha muslimiinta ah haddii uu helo cid walaal ah oo garab qabato Xuseen waxa uu sheegayaa in ay jirto xal kale oo aan ahayn birahan inuu ku boodo sida in uu gashto lug macmal ah hadda koor lugtaas ayay ku sadaqaysteen dad muxsiniina balse muddo dheer kadib oo uu isticmaalayay waa ay ka dhamaatay sida aad u jeedaan waxa uu codsanayaa lug artificial ah iyo xitaa in noloshiisa wax laga bedelo oo dadka muxsiniinta ee waxaysta ay wax u abuuraan